aan is arkin muddo aan u jeedaa aadna aan u jeclahay kaliya laab baan kuu salaamay ila soco waa ku soo wacaya markaan khadka ka baxo maanta maxkamad baa ku suga sacaaw inaad aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin soo dhawaada shacabka Soomaaliyeed gobolka Minnesota soo dhawaada insha Allah soo dhawaada meel kasta joogtaan aad baan idin wada salaamaya ayaan xaaji maxamed oo ku salaamay talmoon oo ku salaamaya kulli Firdawso Xasan kulligiin soo wada dhawaada idin ma magacaabi kara mid kaliya laab soo dhawaada insha Allah laba arrimood oo xasaasiya oo shacabka Soomaaliyeed gobolka Minnesota aad indhaha igu hayeen maalmahan ayna socotay dhageysiga dacwadooda labadii isbuuc ee la soo dhaafay ayaa waxay u eeg tahay labadoodii in mid ka mid ay soo gabagabaysay berito waa kiiska gacan ku dhigla Saciid Maye oo maanta ugu dambeysay isagoo ahayd dhageysiga hadalkiisii iyo kufsada Daahir Nuur oo isaguna ka baxsaday maxkamadii gooyay 15 bishan ayuu maxkamadda lahaa waxaana loo gooyay warqadda xiritaanka marka insha Allah waa labadaas arrimood dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota aad ayay indhaha ugu hayeen arrimahaas xasaasiga ah labadaas case oo ah laba kiiso aad u waaweyn Soomaalida degan gobolka Minnesota aad iyo aad ay uga naxeen marka insha Allah bidnillaahi kariim waa idin dhameystiri doonaan soo dhawaada gabadhan abtiga oo ahaa oo aad u jeclaaba soo gashay waa Fartuun Kamas la neere banaan degtay abti aad baan ku salaamaya kaliya laab okay وأيدين بلابة برنامجك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنت مقعي موقع تقانا بالشعب الصومالي ولكن عبد الحكيم عثمان نور أوك مقعد الشيخ الصومالي AKA حرت شيخة من يابرس مينيسوتا أنت نعوي أنت يجعل أنت يتاجر سنة أنت يقصهر جدا لما أنتين وحنا نقول السلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxay barnaamijkeegan maanta uu ku saabsan yahay laba kiis oo midna uu ahaa dil midna uu ahaa kufsi ilmo yar oo ka dhacay magaalada Minneapolis mid waxa uu dhacay sanadkan aynu ku jirno bishii February 8 ayuu dhacay midna waxa uu dhacay bishii August 2020 okay waxaan ku horeynaynaa kiiska gacan ku dhigle Saciid Maye gacan ku dhigle Saciid Maye wuxuu ahaa wiil Arab iyo Soomaali iska dhaleen hooyadiina Soomaali tahay isaguna ah Arabta waddanka Cumaan iyo Yemen sida la sheegay degan gobolka Minnesota waxa uu bishii August 24keedii uu ku dilay magaalada Minneapolis aaba Soomaaliyeed oo la yiraahdo مرحوم إدريس يوسف الله بنحرسته إدريس وحاو إفك كجتجي جبرير أبيش ديسمبر جلي دون تأفرجر مرحوم كا وحاو لدعي وخدفتي جارجيس جعن كلية للسعيد مايا مركو مرحوم كدعي كبعد جارجي أيوه هذا الدب يقصو كحيي وحاو كمرسي مدح مرحوم كا داوع علوس بنقضي وحالا كان عسبتال HCMC هانبين كاونتي ميديكال سنتر مالمكا بعدي مرحوم كيوا جيريودي قاعن كلية للسعيد ما وحاو بحصدي ودك مريكا وكبحي وحاو تج مقالده ودك مريكا كدي سكور ريجي وحاو ديارات كراعي ولقو قبطي جرانكا واشنطن يسوق أصعد تركيا يسوق أصعد تركيا أيال سوقته وكهل دونا إقرأ مهدي رسبكتي برنامج كان كهذا احترام هيقول قسم إن الميل كلا ولا قاقو أوكي وحلا قصوا قبته ستيت أوف واشنطن إيربورت يسوق أصعد تركيا دونا يعني إنه هالكا كجلا صوماليا سعيد ما يسال دين شيء هو يديس وصومالي يسوقنا وعمان يمن وضمداس أيوكيمي مرحوم كأودي لنا وحوها مرحوم صوماليات بوها أو مواطن صوماليات
ciidamadu markay gacanta ku soo dhigeen Saciid ee la soo xareeyay Saciid waxa lagu soo daayay damiin lacagtiisu tahay $100,000 Mareykanka oo laga dhigay waxa lawyer loogu qabtay $80,000 oo lacagta dollarka Mareykanka okay halkaas calaamatul question ayaan saarnaa waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota inaan u bayaamiyo arrin ay aad uga nixi doonaan lacagtaasi waxa ay ka timi dhaqaalahaas uu ka yimi jeebka muwaadiniin Soomaaliyeed oo waliba qaarkood ay gobolka Minnesota sheegtaan inay ka mid yihiin culimada waaweyn ee gobolka Minnesota wax la dafiraya maaha wax la qarin kara maaha wax laga doodi karana maaha run ahaantii mid ka mid ah culimadaasi waxa ay ilmaadeen ruma ay yihiin Saciid Maye hooyadiis waa nin sheegtay inuu ka mid yahay imaamiyada gobolka Minnesota haddana ku jira urur la yiraahdo Isaiah oo sumcaddii Soomaaliyeed iyo sumcaddii muslimiintiba dhulka la dhacay oo khaniisiin iyo kaniisada iyo wax ka daba wareega waa ninka la yiraahdo Xasan Dhooye waxa ay ilmaadeen ruma yihiin gacan ku dhigla Saciid Maye hooyadiis $25,000 Mareykanka ah oo Xasan Dhooye uu ka guray bulshada Soomaaliyeed ayuu ku caawiyay in qaarna lawyer loogu qabto qaarna lagu soo daayo gacan ku dhigla Saciid Maye ma uusan qarsan Xasan taageeradiisa buuxda ee abtinimada ahayd waxa uu soo istaagay oo uu yimi goobtii dacwadu ka dhacsay oo ay ku sugan tahay hooyo Soomaaliyeed oo aad u da'yar oo ilmo yar oo 4 jir ah oo marxuum ku dhintay ay u dhashay goob ay ku sugan yihiin ehelkii iyo familygii dadkii laga dilay wiilkood imaamka Soomaaliyeed ninka culimada Soomaaliyeed sheeganaya billaah calaykum Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis inala degan qamiiska inoo xiran dhahayana wiigagii ka horeeyay wiigagaan u ololeynayay in booliska Minneapolis la gooyo oo balaayooyinka sameeyay si community u sii baabaan oo Ilaahay baan idinku dhaarshay Soomaaliyeed inta uu soo baxay gacan ku dhigila wiil Soomaaliyeed gaari ku dilay wallahi oo billaahi oo tallaahi markii la daaray videogii markii la daaray markuu gaariga jirsiinayay ummadda oo dhammi waa qaraacantay oo hin gabadhii uu ka dhintay marxuumku ilinteeda waa la aaminsan kari waay waa uu fadhiyay ninka sheekha sheeganaya ee Soomaaliya Xasan Dhooye waan wadaad kamid ahaa culimada gobolka Minnesota gaar ahaan gudida boorka ee masaajidka Abu Bakar ayuu ku jira Abu Bakar Sadiq waxa ay khilaaf kala dhexmaray sida 1 second الله اوكي وان كسوعيا لايف بان كجيرا waxa iliga qabo Xasan Dhooye waxa uu kamid ahaa gudida boorka ee masaajidka Abu Bakar khilaaf badan oo ku kala dhaxyimi isaga iyo culimada masaajidkaasi oo dhibtiisuna aad u badnayd waxa $30,000 looga furfurtay inuu ka baxo gudidii boorka ee masaajidka Abu Bakar waxa laga saxiixay warqad waxaana la siiyay $30,000 ka bacdina organization yar oo magaaladan ku yaala ayuu furtay oo magaca muslimiinta ku qaraabta waxa kasta ha sameeyay laakiin maalinta Xasan Dhooye ay sharaftiisu ay dhulka u dhacday waxay ahayd اسبوعا ان ku jirna daraad markuu soo istaagay maxkamadii gacan ku dhigla Saciid Maye oo dilay marxuum Idris Yusuf waa mid taariikhdu ku qori doonto Xasan Dhooye shacabka Soomaaliyeed maalintii aan sheegayna Xasan Dhooye waa uu gooyay maxkamadii labaad ee shalay iyo tii maanta labadooda midna cad muuse soo dhigay shalay waxa la wareystay qofkii qaaday DNA-da oo ahayd gabadh waxa kale oo la wareystay detective-kii ninkii baaritaanka u qaabilsanaa daraad waxa la wareystay labadii booliska ahaa ee loo yeeray markii accident uu dhacay ee marxuumka dilay Saciid Maye waxa uu shubay been aad iyo aad u badan isagoo xitaa marxuumka warar kale oo been ka sheegay aqoon ayna u dhaxaynin laakiin markii marxaatiyaashii goobta ay hadleen oo ka mid ahaayeen labadii officer ee loo yeeray ee Minneapolis Police Department ahaa labadoodiba waxay sheegeen wuxuu Saciid sheegay oo dhami inaan haba yaraatee wax ka jira ayna jirin maanta maxaa dhacay haddaba maanta macna badan oo idinta taaban kara ma jirto maanta maxkamadda waxa la isku soo galay 9kii subaxnimo waxaana laga soo dareeray galabta markii ay 4 Saciid Maye gacan ku dhigla Saciid Maye waxa uu shubay warar badan oo ay ku jireen qaarkood jees
iyo nacnac aan loo baahnay isagoo ku addacoonaya inuu isdifaacayay in la weeraray yani waxyaalo badan oo arkaysaan hadalla kibir iyo mustaqil ay yani waxa aan ka soo qaadi karaa halkan ayna ku jirin ugu dambayn waxa loo saaray gudi jury ah kana kooban 15 qof juryda ilaa iyo usbuucan la soo dhaafay usbuucan maanta ku jirno intaaba waxay dhageysanayeen hadallada maxkamadda wixii dhacayay oo dhan iyo cadaymihii la soo bandhigay goobta waa la buuxay Soomaali labada dhinacu gacan ku dhigluhu ka dhashay ama abtiyaal u ahaa iyo dhinacii uu marxuum ka dhashay ee tolkiis iyo xididkiis ba ahaa oo aniguna aan ka mid ahaa marna tolkiis aan ahay oo inaadeerka Allah u naxariisto marna aan saaxiib ahay oo wiil aad u ixtiraam badan oo Allah u naxariisto marna aan xidid ahay oo gabar inaadeertay ay wiil ba dhashay Saciid gacan ku dhigla Saciid ma waxa uu shubay dhammaan wax alla iyo wuxuu shubi karay oo been iyo aflagaado iyo waxaan macna badan oo hadda ii sheegi kara aan lahayn ugu dambeyntii waxa go'aan lagu gaaray in barito la soo gabagabeeyo kiis 15 juurida ahi barito go'aanka ay qaataan Saciid waxa loogu galbin doonaa xabsiga wuxuuna mudan doonaa cadaalad insha Allah bidnillah kareem ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan marxuumku waxa uu ka tagay gabar yar oo bisha aan ku jirno soo socotay ee December gali doonta sanadkii afraad haloo soo duceeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga u qaboojiyo ehelkiisa xaaskiisa iyo ilmihiisa yaraa in ilmahaas yar Ilaahay uu ku koriyo nolol fiican oo uu aabalaanta ka dhigay ninkaas aad aragtaan laakiin ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxa wax aad iyo aad looga yaqiiqsoodo aad iyo aadna looga xumaado in nin dan oo lahaa culimada magaalada Minnesota ayaan ahay culimada Soomaaliyeed baan ahay oo qabiil hooyadiisan isku qabiilnahay oo ku difaacay gacan ku dhiigle wiil Soomaaliyeed aaba Soomaaliyeed baabur intuu jiirsiiyay ku dhuftay markuu dhacayna ku soo baxo madax ka silmirsiiyay waliba ku bixiyay maalkii uu dadka Soomaaliyeed uga qaadayay in masaajida iyo wax lagu caawinayo xasan dhooye maanta wuxuu yahay Soomaaliya cidda idinka saaran ma jirto waana wada aragtaa waana idin soo gudbiya keeskaas Saciid barita wixii la xukumo halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa waxaan goob joog barita ka ahay haduu Ilaahay yiraahdo dhageysiga dacwadda maxkamadda oo aan taagnaa maalmahan oo dhan kamana harayno ilaa iyo inta uu cadaalad helaya marxuum Idris Yusuf Ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiyo keeskaas halka ku xidh okay waxa jiray isagana kees kale oo dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u sugayeen oo ahaa Daahir Nuur waa kuma Daahir Nuur waa nin aad wada garanayseen oo bishii February 8 2021 kufsi u geystay gabar yar oo 8 jir ah oo uu hooyadeed uu qabay gabadha yar hooyadeed Daahir Nuur waxa uu dhashay 3 caruur waxa ay dagalaayeen billiga ka soo horjeeda moolka Karame ayay daganaayeen ilma yar oo 8 jir ah ayuu kufsaday Daahir Nuur goobtii uu kufsiga ka geystay oo ahayd guriga gabadha yar ee 8 jirka waxay la wadaagtay walaasheed ka weyn arinta u sheegtay walaasheed ka weyn markii arinta u sheegtay walaasheedna waxay u gudbisay laamihii ammaanka sida sharciga waddankaani uu qabo qofka marka aan la qaban ee ugu horeysa ee dambi lagu soo eedeeyo isla markiiba dawladdu kuma soo boodo oo lama qabsado waxa la ilaalinayaa xuquuqdii qofka uu lahaa iyo xuquuqdii shakhsigan victimkii uu lahaa xitaa kan dhibaatada geysanaya xuquuq buu leeyahay dadka Soomaaliyeed waxay moodaan in qofka markiiba la iskaga soo dhigo oo la iska soo qabsado sharcigu saama shaqeeyo Daahir Nuur waxa uu kufsiga geystay bishii February 8 2021 Soomaaliya hadalkayga u fiirsada lama soo qabanin markii loo gudbiyay laamihii ammaanka baaritaan baa dhacay baaritaanku markuu dhaco sideedaba waxa ay sameeyaan dawladdu haddii ay arkaan kiiskan inuu kiis macquul yahay oo qofkan lagu qaban karo sarjwar baa loo jaraa qofka waa la soo qabtaa haddii aanu ahayna saas inta loo duuduubo ayaa lagu ridaa qashinka dawladdu baaritaankii ay qaaday waxay soo gaadeen in kufsada Daahir Nuur uu kufsaday ilmaha yar uu adeerka u ahaa ee jirka ahaa ee hooyadeed qabay hooyadeedna 3 caruur ayay u dhashay bishii April 7 keedii
ayaa daahir waxaa loo soo gooyey warqadda surgeon warranka in la soo qabto oo la xidho daahir nuur waxaa lagu xareeyay xabsiga bishii abril 27keedii 2021 daahir waxaa lagu soo daayay 75,000 oo dollarka Mareykanka ah 75,000 waxaa bixiyay niman sheeganaya culimo oo masaajid karameel ku yaala banaankiisa iyo niman ganacsata oo moolka karameel dukaamo ku leh oo ku taageeraya daahir nuur kufsiga iyo dulmiga uu geystay dawladdu iskama soo xidhin dhageysta hadalka waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan ka dhaadhiciyo dawladdu iskama soo xidhin daahir nuur arrintan waxa uu geystay February 8 waxaana la soo qabtay warqadda loo gooyay April 27 waxa loogu jiro warqadda waxa lagu arkay waxyaalo cadeyna oo lagu xiri karo macquul ah lacagtii daahir lagu soo daayay waxa 75,000 oo dollarka Mareykanka ah raga bixiyana waa idin sheegay waa ganacsato karameel kula dukaamo iyo niman culimo oo masaajidka banaanka ku yaala iyaguna ka tirsan waxa weerar baan lagu qaaday oo xagga saxaafadda ah hooyadii Soomaaliyeed ee dhashay ilmahaas yar ee la dulmiyay ee la kufsaday way u dhabar adeegtay waxayna ahayd hooyo geesiyeeda runtii oo xaqiiqada dhabta ah ka hadashay waxa lagu soo daayay daahir banaanka la keenay waxa bilowday dhageysiga dacwado badan oo daahir inuu ka qayb galo ay ahayd daahir waxa uu xareeyay iyo groupkiisii ay xareeyeen case ahaa in uu xaaskan la deganaa guriga oo ay khiyaam jirtay dawladda balfiiriya 3 caruur oo aabbu yahay iyo dhowr iyo 10 caruur oo wadeeru yahay oo ay kamid tahay ilmuhu kufsaday gurigoodii uu ku noolaa uu seexanayay uu ceeshkoodii cunayay ayuu intuu ilmihii yaraa kufsaday haddana waxa uu damcay inuu homeless ka dhigo oo uu dacweeyo guriga deganaaya waxa uu xareeyay mooshin ah in ay dawladda khiyaamisay oo uu gurigaanba ku noolaa oo sekshineedha arrintii waxay soo jiitantaba bishan 15keedii ayaa waxa uu daahir lahaa dhageysiga dacwadiisa 15 bishan aynu ku jirno waa uu gooyay daahir nuur maxkamadii maxaa dhacay hadaba waxa loo gooyay daahir nuur daraad warqadda xidhitaanka in la soo xidho la dhigo xabsiga meel kasta uu ka joogo wadanka Mareykanka 75,000 ee dollar ee laga dhigayna waxa la wareegay Hennepin County dawladda ayuu gacantooda galaya lacagtaasna waa dhimantay sida darteed hadii daahir lagu waayo muddo 90 days oo surgeon warrankaas 90 days uu ku eegyahay dawladdu soo qaban waayeen daahir waxa la gelinayaa daahir liiska la yiraahdo Hennepin County most wanted يعني إنه wanted yahay ayaa la gelinayaa hadii dhowr sano ka bacdi sanad mise 2 sano la waayana waxa lagu xareynayaa state of Minnesota most wanted haduu labada sano dhaafana waxa la gelinayaa United States most wanted halkaas ayuu kiiska daahir isaguna maraya maxaa dhici kara hadaba marka hadii la soo qabto oo xabsiga lagu soo celiyo daahir ma loo yeeri doonaa inuu beel ku soo baxo taas waxay noqon doontaa lawyerka uu haysto marka uu qabsan doono yani galaangalkiisa iyo xirfadiisa in loo ogolaan doono hadii loo ogolaado inuu beel dambe uu ku soo baxo daahir nuur oo dadkii hore uga dhigay 75,000 dollar ay ka dhigaan uu soo bixi kara laakiin waxay noqonaysaa lacag badan marka insha Allah bidillah kariim shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota labada arrimood ayaa rabay inaan la wadaaga caawa labada arrimoodna waa idin dhameeyay insha Allah waxaad iga sugtaanba waa barito iyo xukunka ku dhici doona Saciid Maye gacan ku dhigla Saciid Maye inta uu mudan doona xabs insha Allah bidillah kariim ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa marxuumkaas dhintay ilaahay inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo isagana cadaalad buuxda uu barita helo jazaa'ada xanuunku geystay Saciid Maye xanuunku geystay inuu barita dhadhamiyo ayaynu ilaahay uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala dhamaantii waa idin salaamaya waa walaalkeen Cabdi Xakiin Ismaan Nuur waxaan idin leeyahay